السلام عليكم. الملك الصالح نجم الدين أيوبي wuxuu ahaa sultaankii Masar iyo Shaam ana asaasiyay dowladii mamaaligta. Sultaankii u dambeeyay ee Ayuubiyiinta ku lahaayeen Masar waxaad ka taqaanaadiyay mar labaad furtay Qudus. wuxuu dhashay 205 iyadoo ay Ayuubiyiintu qaybsan yihiin halka uu goobjoog u ahaa Saliibiyiinta oo qabsanayaan magaalada Bayt al-Maqdis. haddaba sidee ku qabsadeen magaalada Bayt al-Maqdis Saliibiyiintu? si aan u fahamno asalka sheekadana bilowgeeda aan dib u nooc waxyo Al-Kamil Najmuddin Ayyubi oo ah al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi aabihi kaasoo xilliga dagaalku ku jiray wiil adeer u ahaa oo beejir An-Nasir Daawud wuxuu laf dhungasho ku ahaa adeerkii Al-Kamil Najmuddin Ayyubi kaasoo xilliga weerarka ka soo qaaday dhinaca Shaam ama Dimashq. Al-Kamil Najmuddin Ayyubi xilliga wax tabaraha Muusa lahayn oo iskaga difaac wiilkiisa sida awgeed wuxuu ku qasbanaaday inuu heshiis la galo Saliibiyiinta weerarku ahaa. Saliibiyiintu wuxuu heshiis ku galay inuu ku wareejiyo magaalada Bayt al-Maqdis oo hore u furtay adeerkiisa Salaaxudiin Ayyubi taasoo ahayd doqonnimtii ugu weyn ee taariikhda Islaamka soo martay. 1229 wuxuu magaalada ku wareejiyay Frederick II Imperatorkii Germany halka uu isagana ballan qaaday inuu ka difaaci doono wiilku adeerku ahaa ee An-Nasir Daawud. nasiib darase wuu dhintay 10 sano kadib. Al-Kamil Najmuddin Ayyubi run ahaantii al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi wuxuu xilka qabtay 1244 iyadoo ay waxaasoo masiibo haysatay Ayyubiyiintii isaguna haysan ciidan uu ku xaliyo waxaasoo dhan. qarnigii 11aad diinta Islaamka waxaa ku soo biiray caloosho shaqaystayaal iyo addoomo cusub oo Turki ah kuwaas oo ay dowladoodii Khawaarizmiyiinta burburiyeen Tatarkii. al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi isagoo isla ka faa'iideystay xoogga caloosho shaqaystayaasha muslimiinta ah buu damcay inuu weerar ku qaado magaalada Bayt al-Maqdis. nasiib darase Ayyubiyiintii colka lahaa al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi ayaa hoos ka heshiiyay caloosho shaqaystayaasha reer Khawaarizm iyagoo kula ballamay inay gumaad wadareed ka geystaan magaalada Bayt al-Maqdis si ay u sumcad diilaan al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi. al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi isagoon ogeyn wax lagu heshiiyay caloosho shaqaystayaasha reer Khawaarizm uu weerar ku qaaday magaalada Qudus waxayna gumaadeen maatida ku nooleed halkaa. mar labaad haddana wuxuu go'aansaday inuu weerar kale ku qaado Ayyubiyiintii reer Shaam taasoo markii dambe u horseeday inuu qabsado magaalada Dimashq. laakiin markan xigta waxaa banaanka timid dhagarta caloosho shaqaystayaasha reer Khawaarizm. al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi wuxuu go'aansaday inuu weerar ku qaado caloosho shaqaystayaasha lacagtu daacad u ah. khaliifkii Cabbaasiyiinta al-Mu'tasim billah ayaa al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi siiyay darajada sultaannimo isagoo ugu tahniyadeynaya qabsashada Dimashq. halka ay Saliibiyiintu bilaabeen abaabulka duulaankoodii toddobaad ee muslimiinta. al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi isagoo daraysan ciidan la'aanta iyo awood darida ka haysata ka hortagida duulaanada Saliibiyiinta baa wuxuu mar labaad go'aansaday inuu soo iibsado ciyaalkii yaryara ee reer Khawaarizm. ciyaalka yaryar ee addoommada ahaa waa kuwa markii dambe la bixi doono magaca dowlad mamaalig. 1248 waxaa bilowday duulaanadii Saliibiyiinta waxaana weerar soo qaaday Luiskii 9aad ee Faransiiska kaasoo qabsaday magaalada Dimyat ee waqooyiga Masar. al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi iyo addoommadiisii reer Khawaarizm waxay go'aansadeen inay ka hortagaan duulaanada Saliibiyiinta. nasiib darase isagoo difaac kaga jira magaalada Dimyat buu geeriyooday sultaankii waxaana sidaa xilka ku qabtay xaaskiisii Shajaratu Dur la oran jiray taasoo ahayd gabar caqli badan. Shajaratu Dur waxay sidaa ku noqotay sultaankii u horeeyay ee dowladii mamaaligta. run ahaantii si maskax ku dheehan tahay bay u maamushay dagaalkii waxayna gacanta ku soo dhigtay boqorkii France Luiskii 9aad. ilaahay ka raali noqday al-Malik Salih Najmuddin Ayyubi wuxuu dunidan macsilaamiyay isagoo dib u xoreeyay magaalada Qudus sidoo kalena hoos u dhigay saameynta Ayyubiyiinta kana hortaga duulaankii toddobaad ee Saliibiyiinta. laakiin mushkilad cusub baa dunida Islaamka soo biirtay waana duulaanadii Tatarka.